السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي dhammaantiin waa idin salaamay meel walba dunida ka joogtaan. Kusoo dhawaada channelkayga. Fadlan hadda isoo booqato markii ugu horreysay ay tahay subscribe dhac ku sii, like dhac ku sii. Insha Allah maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo haaraha. Haaraha waxay galaan inta badan labada dhinac. Labada dhinac way galaan, gacmaha dhinacna way galaan. Inta iyo inta waa meelaha ugu badan ee haaraha galaan. Marka insha Allah haarahaas maxaa keena? Maxaa laga qaadaa mise maxaa keena? Okay, sidoo kale waxaa kaloo ka hadlaynaa madmadowga finanka ay keenaan. So insha Allah marka haaraha fast ka bilaabeyna madmadowga badanaa waa naqaanaa waxaa keena finanka oo inta finanka soo baxaan kadibna ay kugu dhaafaan madmadow soo maha. Laakiin haaraha waxaa keeno kiimika culus inaad marsatid oo kiimika haweenka ku seexatid labadan dhinac haarta way keentaa iyo dhinacan saan u seexataa mugdi way gedhan marka calaamad ka soo baxaysa labadan dhinac dhinaca zaid ugu seexatida weli ay ka soo baxda haarta. Marka insha Allah haarta waxaa keeno koodi soo hore u sheegay adigoo kiimika culus marsatay talabaad adigoo waxba wajiga aan marsanin oo banaanka cimilada xilliga oraxda banaanka u baxdid way keentaa iyadana. Waxaa kaloo keena in gabdhaha markay uurka yihiin way gashaa haarta laakiin marka dhashid qaar way ka baxdaa qaarna ma ka baxdo still way iska qabaan. Marka maanta insha Allah waxaan doonayaa inaan ila sheego garow haartas si askiga bi'in lahayd adigoo guriga joogo waxyaabaha aad jikadaada ka helaysid oo la marsan kartid oo na haarta ka bi'inaya. Haarta waqti inaad siisid u baahan tahay. Okay, wax oo degdeg lagu bixin karo ma aha. Marka waqti siinaysa 7 maalin ilaa 14 maalin ilaa 3 isbuuc ama 4 isbuuc. Marka insha Allah asxaabta dadka kiimikada weynka marsado weynka iska jira haareen iyo wareewayaan sida good wajiga ugu fiicna saakiin ku weyn hadda u marsanaysa hadhoodi dambe haddana waxaa la wareegaysa oo raadinaysa waxa haarta iska bixisay dhakhtar fulaan u tag ii sheegay dhakhtar fiican oo iskiinka ku saabsan dhakhtar fiican oo iskiinka ku saabsan tagahela dhakhtar maanta dhan dabarooraysa. Marka insha Allah kiimikada weyn iska ilaaliya. insha Allah waxaa kaloo idin tusi doonaa geedaha fiican kareemada fiican oo wajiga la marsado oo cimilada macad ka celinayso insha Allah si haar ku galin. Marka insha Allah videoga soo tusaya waxa sameyn lahayn iyo waxyaabaha la isku dardaraya. Fadlan waxa ku soo celinaya hadda isoo booqatid subscribe isar videoga hadda ka heshay like saar. insha Allah Ramadan mubaarak meel walba joogteen ciid wanaagsan ciidna way soo footaysaa insha Allah. Okay asxaabta weelkaas yar ujeedaan hadda waxaan ku qasan doonaa creamkii waxyaabaha uu ka kooban yahay waa ila arkaysaan insha Allah. Shayga ugu koowaad waxa weeyaan qolofka limbambeelada oo soo hoolay waaye waxaad ujeedaan waa qolofka limbambeelada oo soo hoolay birta karootada ayaan ku hoolay waa adii hal qaado oo full waaye because qaadadaas hadda aan isticmaalayo waa qaado yar hal qaado oo full kugu filan because hal qaado adii waxa isticmaali kartaa ilaa 3 maalin camal frinjeerka gashanaysa no problem. waxaa kaloo ku darsanayaa bariiska shiidan insha Allah asxaabta bariiska shiidan ayaan ku soo daraa isagana hal qaado bar waaye qaado buuxdo saas ma aha. insha Allah shayga kale aan ku daraayo idinoo ila arki doontiin waa aloe vera gel ama gelka aloe vera kan dabiiciga hadda haysatid waa okay isagana waa isticmaali kartaa. aloe vera gel waxaan ku soo darayaa 2 qaado insha Allah. aloe vera gelka wajiga waxay ku siinaysaa qabow. Okay, soothing ay qabtaa waa soothing gel la dhahaa wajiga waxay siinaysaa qabow. bariiska saan wala ognahaybo wuxuu leeyahay whitening haarta kugu madmadoowaatee ama
finanka madmadowga kugu reebay ayuu insha allah white ka dhigaya uu ku cadeynaya jirka iskuulka ekaysiinaya. waxaa kaloo isticmaalayaa vitamin E capsule. vitamin E da noocyo badan ku imaada, asoo cagaar hataa way jirtaa. marka nooca aragtid un adi waxaa soo gadanaysaa vitamin E for skin and hair, labada waa loo isticmaalaa. vitamin E skinka soo gado waa isla midkii, ama jaala ha ahaado ama cagaar ha ahaado, waa just the same. kambaniga soo saaro unbaa kala duwan, ma ogi isku mid waaye insha allah. liintana waxay leedahay liima bambeelada iyo qolofkeeda wuxuu leeyahay vitamin C. maasha allah, vitamin C na waba waxa jirkeena dhan uu ku dhisan yahay. lack of vitamin C heart ida keenayso haddii jirkaada maartay dhacaanka ama vitamin C ga waxyaabahaas uu kaa dhamaado. marka insha allah vitamin C ga sheeg waa iga yar adkaatay. aloe vera aan kusoo daraya hadda, wax biyo iyo wax kale dhan ma isticmaalayo insha allah. vitamin vitamin C ga ku jiro liima bambeelada qolofkeeda kore, maasha allah skinka qatar u ka dhigaa maasha allah. vitamin C ga sayto wuxuu ku siinayaa lightening, asagana skinku glowing ku siinayaa. wax madmadowga ama haaraha ama duruftu ka saaran skinka dhamaa lagu ka qaadaa, because vitamin C waa waxa jirkeena uu ku dhisan yahay, waa u baahan tahay insha allah. creamkan maasha allah asxaabi waad kasoo sheekeyn doontaa, waadna kasoo duceyn doontaa. soo tijaabi. waa inoo diyaar creamkii aan guriga ku sameynay oo haarta iyo madmadowga ugu talagalay. meelaha haaraha ku leedahay wajiga ay ku masaaj gareynaysaa si fiican, adigoo hadda xoog isticmaaleynin, tartiib baa ugu masaaj gareynaysaa. meel kasta oo haar ka leedahay waad marinaysaa, tartiibna saas ayaa ugu masaaj gareynaysaa insha allah. markaas fiican ugu masaaj gareysid hadda jaalo u ekaada ma jeedaan, huruud in lagu daraa moodaa, laakiin huruud dhan ku jiro. jaalahaas waxaa keenaya waxaa waaye qolofka liima bambeelada qolofkeeda kale waa jaalo, soo ma aha. marka jaalada waxaa ka dhigay waa qolofka liima bambeelada, huruud kuma jiro asxaabta. marka soo tijaabiya, walaahi waad ka heli doontaan. gabdhaha haaraha qabaan lasii sheegareeya, haddaad haar leedahay iyo madmadow aad buu ku anfacaya. ha degdegin, because waa degdeg oo dhaqso haarta kaa bixinayo ma ahan. haartuu kaa bixinaya laakiin sida kiimikada camal uma shaqeyso, because waxaan waa natural. waqtisi isbuuc ilaa 2 isbuuc ilaa 3 isbuuc maalin walba marso, adiga ayaana arki doona isbedel weyn ayaa wajigaada ka dareemi doonta haddaad haaro leedahay. saas ayuu yahay creamka saad u jeedaanba. dabool ayaad saaraysaa, kadibna frinjeerka iska gashanaysaa, wax dhib ah ma lahan. asoo qabow waa marsan kartaa. markaa marsatid kadib maxaad ku joogaysaa 15 daqiiqo, kadibna waxaad iskaga raacinaysaa biyo caadi qabow ah, biyaha mashiinta iskaga raacinaysaa. marka waxaa kale creamka kale idin tusi rabay waa kan, waa sunblock ama sunscreen UV SPF 90. waa maasha allah. marka cimilada u baxayso wuxuu kaa celinayaa inay oraxda wajiga ka gubto. mar walba ood banaanka u baxaysid waa marsanaysaa, wajiga ayaad marsanaysaa, kadibna waa iska baxaysaa. maasha allah, haartuu kaa ilaalinaya. kan inay haar ku gasho ayuu kaa ilaalinaya, haarta ayuu kaa ilaalinaya creamkan saan hore usoo sheegayba. islii haddaad joogtid meesha safa habal waad ka helaysaa. nooc kale daaratidna waa gadanaysaa, laakiin cream oo sunblock oo oraxda kaa celiyo waa muhiim inaa haysatid insha allah. marka asxaabta waa idin faa'iideeyay. ha hilmaamin inaad sunblock ama sunscreen marsato markaad banaanka aadayso, hadda haaro leedahay, haddaad haaro iska ilaalinayso, labadaba waa ku anfacaya insha allah. waxaa rajeynaya videogan inaad ka hesheen. please waxaa idinka codsanaya haddaa isoo booqataan inaad subscribe kii saartaan, videoga haddaa ka hesheen like saar. haddaad garanayso gabdhaha haaraha ka cabanaya lasii share gareey insha allah. kheyr ayaa idin dhaafaya. mac salaama.